isagoo ra'iisul wasaare ah ayuu 9 maalmood u qabtay Farmaajo wakiilada qaabilsan Soomaaliya ee fadhiga ku lahaa magaalada Nairobi wuxuu xilligaasi rabay inay u soo guuraan gudaha dalka siyaasiyiinta Soomaalida ayaa badi aaminsan in aanay nuuxsan karin laanta beesha caalamka Farmaajo oo siyaasadda lugaha kula jiray 12 sano la soo dhaafay ayaa la yimid wax badan oo ka duwan dhaqankii siyaasiyiinta kale ee ku wajahnaa shisheeyaha waxay mar kale isqabteen markii uu xilka kaga tagay heshiiskii Kampala Accord ee 2011 wuxuu isagoo madaxweynaha dalka Kenya wakiilkii UN ee Soomaaliya halka ay maanta isku hayaan nooca doorasho ee ka dhici karta dalka siyaasiyiintu waxay badi fahamsan yihiin in dalku uusan wali isku filnayn oo ay tahay in la xiriyo go'aamada ka dhanka beesha caalamka laakiin Farmaajo oo siyaasi shacbi ah ayaan u joojin aragtidaas Soomaaliya ayaan wali ku guuleysan inay iska bixiso miisaaniyadeeda sanadlaha ah deeq-bixinta caalamku waxay isu rogtaa meelaha qaar gumaysi maskaxeed masiirka oo la isku qabsado curyaamin dawladeed iyo ilhaano ummadeed dhaqaale ahaan ciidan ahaan iyo siyaasad ahaanba Soomaaliya waxay gacanta u gashay shisheeye dhowr ajenda leh Soomaaliya waxay gacanta caalamka hoos joogtay oo la siinayo kaalmo dhaqaale tan iyo markii ay xornimada qaadatay 1960kii laakiin intaasba Farmaajo uma joojinayo sida ka muuqata xilligan dhawaan si weyn ayaa la isugu goodiyay wakiilada caalamiga ayaa la sheegay inay u hanjabeen hoggaanka maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka ah iyagoo ugu hanjabay